بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دوادا markaliya barnaamijkii caafimaadka oo toddobaad walba xilligan oo kale idin kaaga yimaada magaalada Nairobi barnaamijkuna si gaar ah wuxuu idin kaaga imaanaya isbitaalka Mucu Aweys oo ku yaala xaafadda Isli gaaraan wadada Ten Street waxaana shaqeynaya 24 saacadood iyadoo lagu soo kordhiyay qalabyo daawooyin laga keenay wadanka Jarmalka qof walba oo haysta kaarka caymiska NHIF inuu soo gaari karo isbitaalka Mucu Aweys oo ku yaala xaafadda Isli waxaana halkaan ka howlgala dhaqaatiir kala duwan oo orkacay dhaqtarka Dr. Ali Mucu Aweys oo ku takhasusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada uurka jirta dhaqtarka aad uga barateen inuu ka soo shaqeeyo wadamada Ingiriiska ee Jarmalka sanadadii ugu dambeeyay u soo guuray Afrika gaar ahaan isbitaaladiisa ku kala yaala magaalooyinka Garowe Muqdisho iyo Nairobi oo iminka uu ku sugan yahay ayaa dadka Soomaaliyeed waxa uu halkaan uga dhisay xaafadda Isli isbitaal casri ah oo dadka Soomaaliyeed ay uga maarmi doonaan caafimaadkii loo aadi jiray wadamada dibadda maadaama laga helayo qalabyo daawooyin casri ah iyo baaritaano heer sare oo isbitaalkan la idinku diyaariyay waxaana halkaan ka howlgali doona dhaqaatiir kala duwan oo horkacaya dhaqtarka caanka Dr. Ali Mucu Aweys sidoo kale isbitaalkiisa ku yaala magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Boondheer dhabarka dambe wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo ku yaala waxaana halkaas ku sugan dhaqaatiir kala duwan hadii si gaar ah ugu baahan tahay dhaqtarka caanka Dr. Ali Mucu Aweys dhaqaatiirada halkaas ku sugan ayaa kula soo xiriirinaya hadii aad u baahan tahay in dhaqtarka ugu timaadid isbitaalkiisa casriga ah oo ka dhisay xaafadda Islina waxa lagu fududeynaya fiisa dalku galka wadankan Kenya oo marka sida gaarka aad ugu baahan tahay dhaqtarka caanka Dr. Ali Mucu Aweys isbitaalkan ayaa waxa uu diyaar ugu yahay ummadda Soomaaliyeed inuu ugu adeego sida ugu fudud oo iyaguna raali uga yihiin sidoo kale waxa lagu ogol yahay qofka haysta kaarka caymiska NHIF inuu isbitaalkan soo gaari karo oo isbitaalkan laga aqbalayo hadii aad ku sugan tahay gobolada Kenya ama magaalada Nairobi dabcan way ku fududahay inaad soo gaartid isbitaalkiisa ku yaala magaalada Nairobi oo qalabyo casri ah iyo baaritaan heer sare laga helayo maadaama qalabyada iyo daawooyinka laga keeno wadanka Jarmalka dhakhtarkuna halkaas uu ka yimid oo Jarmalku uu ka mid yahay wadamada dhanka caafimaadka adduunka ugu sareeya toddobaad walba xilligan oo kale barnaamijka waxaan uga hadalnaa mowduuc gooni ah hadii abu karaal noqdana waxaan uga hadlaynaa sokorta iyo saameynta ay leedahay iyo waxyaabaha loo baahan yahay inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan oo nagu soo food leh in dhakhtarku faahfaahin kala duwan oo naga siiyo marka hore doctor ku soo dhaw Somali Cable Bismillahir Rahmanir Rahim Abdullahi aadi aad baan ku mahadcelinayaa waxaan rabaa inaan mahadceliyo Somali Cable shaqaaleedii iyo madaxdeedii meel kasta ay joogaan binaan iraahdo aad iyo aad baad u mahadsantiin marka xigta Abdullahi waxaan rabaa inaan halkaan ku salaamo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba adduunka dacaladeeda qaasatan reer Kenya oo waqti xaadir la joogo inaan iraahdo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته adigana aad iyo aad ayaad ugu mahadsantahay waqtiga qaaliga ah oo mar walba aad ku soo bixiso barnaamijkan si tala caafimaad aad u siiso dadweynaha Soomaaliyeed ee adduunka dacaladiisa ku kala sugan ee telefishinka Somali Cable naga daawanaya Doctor bal waxaad faahfaahin naga siisaa cudurkan corona wali saameyntiisu ma jirtaa maxaa dadka Soomaaliyeed ugu baaqi lahayd maadaama bisha barakeysan ee Ramadaan ay nagu soo food leedahay Bismillahir Rahmanir Rahim Abdullahi markoobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad horta aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa markaan dib ugu soo noqdo topiga aan rabno caawa inaan ka bilowno coronavirus COVID-19 ilaa waqti buu hadda socdaa sanadkii saddexaad ayuu mar isbedelaya marka COVID-19 Abdullahi wax la yareysan kara maaha inkastoo hadda Kenya 14 beri ka hor la yiri ama 10 beri ka hor maskarka ayaa la xiranin banaanka hadii la socdo hadii laakiin meelaha bulshada meesha baabuurta lagu raaco iyo isbitaalada iyo meelaha la tagayo in la xirto marka hadda waxay noqotay qof walba asagay u taalaa inuu xiranayo kale asay ay ka xiriirinaysaa marka cudurkan cudur lagu ciyaari kara maaha waa cudur runtii ka hortag leh ka daba tag ma laha cudurkan see looga hortagayaa waxaa looga hortagaa afkaaga inaad xirato bulshada isku imaanaysa iyo wax kunfacaya hindisa hadaad aragto inaad ka dheeraato meesha arooska iyo allabariga ka dhacayo bulshadaas weyn iyo caweyska iyo gableyshimber iyo wixii lamid ah inaad ka cararto horta taas ayaa muhiim ah haddii aadan ka cararayna inaad ka xirato maaskadka ka hortag bis uu leeyahay ka dabatagiisa waa dhib badan dad fara badan oo sariir saaranaa jira dad fara badan oo kursi fadhiyaa jira oo ku dhacay cudurkan marka waxaad yeelaysaan waliba dad yar baan aqaanaa waxaad yeelaysaa cudurkan wax la yareysan kara maaha iska jira hadda waliba waaba lala qabsaday annaga Soomaaliyeed aanayna sideynaba iska madax adagnahayo saas ba uma raacno cudurkaas ma jiro baawada ku jira wuxuu ku jira la iska leeyahay marka horta annaga Ilaahayna badbaadiyay maxaa dhacay sida Yurub iyo Mareykanka oo hadda u galaya annaga noo gali baa hal week baa lagu leeyahay
ingiriiska 1 milyan oo qof subxaan allah waxaa lagu leeyahay maraykanka hal wiig 400 kun 500 kun oo qof ayaa ku dhacaya marka cudurkan wax la fududeysan kara ma aha cudurkan ka hortaguu leeyahay ka hortagiisna waxaa ka mid ah afkaas aad ka xirato iyo waxaa ka mid ah adduunka waxaa ka jira tallaalo biotech Pfizer mid la yiraahdo Moderna mid la yiraahdo Johnson oo hadda la joojiyay weliba socodkiisa yar mid la yiraahdo Sputnik ama Sputnik oo Russia ka soo baxa mid Ingiriiska ka soo baxo la yiraahdo AstraZeneca Oxford iyo mid kale China ka soo baxo Sinovac la yiraahdo haddii fursad oo hesho meesha joogtaba ama China joog ama Russia joog ama meesha joogto kii fursad oo hesho qaado faa'iido maahana khasaara ma laha maxaa dhacay Maraykanka iyo Ingiriiska iyo Jarmanka iyo adduunkaas dhan waxaa la sheegayaa dadka hadda u dhibaataysan u tabaalaysan waa dadka aan talaalnayn talaala loo sameeyay waxba loo sameeyay laakiin dadkii waa iska madax adag Soomaali kaliya maaha adduunka dhan ay ka jirtaa madax adag laakiin dadkaas ayaa hadda dhibaato fara badan ugu jira marka annaga kale waxaa noqoseeya ummadda Soomaaliyeed aan rabnaa inaan afkooda ugu sheegno cudurkan ha laga taxadaro aad u mahadsan tahay warajinaya taladaasi dhaxal galka oo mar walba aad barnaamijkan ku bixiso in dadka Soomaaliyeed ay nadaawanaya ay ka faa'iideysan doonaan hagaag daawadayaal wali waxa daawanaysan barnaamijka caafimaadka qaybihii hore ee barnaamijka aad la socotaan waxa uu idinkaga imaanaya magaalada Nairobi si gaar ah barnaamijka caafimaadka waxa uu idinkaga imaanaya isbitaalka Mucu Aweys oo ku yaala xaafadda Islii gaar ahaan wadada 10 Street ayuu ku yaala waxaan halkaan ka howlgalada dhaqaatiir kala duwan oo horkacaya dhaqtarka aan karakter Ali Mucu Aweys oo ku takhasus cudurrada guud gaar ahaan cudurrada uur ku jirta dhaqtarka aad uga barateen inuu ka soo shaqeeyay wadamada Ingiriiska iyo Jarmalka sanadadii uu dambeeyay u soo guuray Afrika gaar ahaan isbitaaladiisa ku kala yaala magaalooyinka Garowe Muqdisho iyo Nairobi oo iminka uu ku sugan yahay isbitaal casri ah halkaan uu ka dhisay oo dadka Soomaaliyeed uga maarmi doonaan caafimaadkii loo aadi jiray wadamada dibadda maadaama laga helayo qalabyo daaweyn casri ah oo laga keenay wadanka Jarmalka sidoo kalena halkaan ay diyaar idinku yihiin baaritaano heer sare ah oo dabcan looga maarmi doono caafimaadkii loo aadi jiray wadamada dibadda oo dhaqaale badan iyo dhibaatooyin badan dadka Soomaaliyeed ay dabcan kala kulmaan oo dhakhtarkuna dad badan oo Soomaaliyeed oo dhibaato badan la soo kulmay caafimaadkii halkii caafimaad doonteen caafimaad darro kala soo kulmay oo halkaan ugu yimid dhibaatooyinkaasina waxaan rajeynayaa in dad badan oo Soomaaliyeed iyaguna ay uga maarmi doonaan isbitaalkan oo ay soo gaari doonaan haddii aad ku sugan tahay gobolada Kenya ama magaalada Nairobi oo aad soo gaari kartaa isbitaalkan waxaa laga ogol yahay kaarka caymiska NHIF ayaa isbitaalkan laga ogol yahay oo lagu daaweynaya haddii bakaraal noqdo sidoo kale isbitaalkiisa ku yaala magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Boondheer dhabarka dambe wasaaradda boostada isgaarsiinta ayuu ku yaala waana shaqeynaya isbitaalkaasi haddii aad u baahan tahay waad gaari kartaa wixii faahfaahin oo intaas dheer waxaad kala xiriiri kartaa taleefanka shaashadeeda kaga muuqda goordhow ayaan dib isugu soo laaban doonaa balse iminka waxaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo qadar adeega bulshada oo ku saabsan isbitaalka Mucu Aweys qaybtiisa magaalada Nairobi ogeysiis muhiim ah waxaa la ogeysiinayaa dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi iyo deegaanada ku dhow in Dr. Ali Mucu Aweys oo ku takhasusay cudurrada guud gaar ahaan uur ku jirta xanuunada dumarka iyo neerfaha uu mar kale dib ugu soo laabtay xaruntiisa caafimaad ee magaalada Nairobi ee xaafadda Islii wadada 10 Street isbitaalka Mucu Aweys International oo ku yaala xaafadda Islii ayaa 24 saac ku qabanaya adeeg caafimaad waxaana isbitaalka lagu diyaariyay qalab casri ah kalkaaliyaal caafimaad iyo dhaqaatiir Soomaali ajaanib isugu jirta isbitaalka sidoo kale waxaa lagu sameeyaa qaliinada noocyadiisa kala duwan bismillaahir rahmaanir rahiim ummadda degan magaalada Nairobi iyo gobolada dalka sida Garissa Mandera Wajir iyo magaalooyinka yaryarba waxaan rabaa inaan u sheego inaan ku sugnahay xarunteeda ku taala xaafadda Islii 10 Street Mau Aweys International Hospital inaan ku sugnahay aad iigu iman kartaan qaf allaale qafkii danaynayo oo Soomaali ah waxaan leeyahay ku soo dhawaada wax allaala waxaad sheeganayso waxbaan kala gaari doonaa insha Allah waxaan rabaa halkaan inaan u sii sheego Soomaalida degan adduunka dacaladeeda oo dhan isbitaalkan cusub oo meeshaas aan bisha January hadduu alla idmo aan xirigiisa jari doono in mataqaanaa looga bogsan doono Soomaalidan ee dibadda ku ordaysa oo Turkiya iyo Hindiya iyo Malaysia iyo meelo la mid ah Bangladesh u socda waxaan leeyahay waa looga maarmi doonaa Islii xaafadda Islii oo magaalada Nairobi xarun waxaan idinkaga furaynaa oo caalami ah oo wax walba laga heli karo wax allaala waxaad sheeganayso laga heli karo xataa haddii ay noqoto ilmaha lagu abuuro la heli karo qalitaanka la nuucya la heli karo lagu dhali karo wax walba oo qof bini aadam danaynaya ama lafaha ama wadnaha ama caloosha ama sanbabka
ama xagga dumarkaba wax walba uu qof la qadanaynayo inuu ka heli doono ayaanu sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba waxaan rajaynayaa in loogu maarmi doono dibaddaas lagu ordayo oo qarashkiisa aad u fara badan yahay tikidkiisa uu fara badan yahay oo mataqaanaa joogitaanka meelahaas la joogay uu ka fara badan yahay Afrikada Nairobi hadda timaado waxaaga ay 100% hoos u dhacayaan 30% kugu bixi kara wixii kugu bixi lahaa marka dibaddaas aad aado oo la ogeyn xataa inaad ku soo caafimaad doonto ilaahay baa caafimaad haya dawana ilaahay laakiin waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed inaan jidka u soo yareyno annaga ummadaas un baan rabnaa inaanu danayno dantooda inaan ka talino hadduu alla idmo Mo Aways International Hospital waxa uu ku yaalaa xaafadda Islii wadada 10 Street wixii faahfaahin intaas dheer waxaad kala xiriirtaa taleefanada shaashada kaaga muuqda وهاجاك داود يالي سو نقد wanaagsan qaybihii hore barnaamijka caafimaadka ayaa daawanaysan toddobaad walba xilligan oo kale barnaamijka wuxuu idinkaga yimaadaa magaalada Nairobi toddobaadkan hadii ba karaal noqdana barnaamijka waxaan uga hadlaynaa sokorta iyo saameynta ay leedahay maadaama bisha barakeysan ee Ramadaan in lagu soo food leedahay dad badan oo Soomaaliyeedna cudurkan ay dhibaato badan oo ku hayo sokorta ama macaanka talooyinka dhakhtarka uu bixinayaan waxaan rajaynayaa in dad badan oo Soomaaliyeed oo barnaamijka daawanaya in ay qaadan doonaan walaalahooda kale ee Soomaaliyeed dabcan barnaamijka uusan u saamixin iyaguna ay fariinta ka gaarsiin doonaan oo aad talooyinka dhaxalgalka oo dhakhtarku inooga tagayo inaad idinkuna dadka kale ee Soomaaliyeed aad gaarsiin doontaan barnaamijku wuxuu idinkaga imaanayaa isbitaalka Mucuu Aways oo ku yaala xaafadda Islii gaar ahaan wadada 10 Street waxa uu shaqeynayaa 24 saacadood iyadoo lagu soo kordhiyay qalabyo daaweyn laakiin wadanka Jarmalka qof walba haysta kaarka caymiska inay jaayfna uu soo gaari kara isbitaalkan oo ku yaala xaafadda Islii gaar ahaan wadada 10 Street sidoo kale isbitaalkan ayaa ah isbitaal casri ah oo si heer sare loo qalabiyay waxaana laga helayaa daaweyn iyo qalabyo heer sare ah waxaana sidoo kale leedkugu diyaariyay oo halkan loogu diyaariyay baaritaano heer sare ah oo dhakhtarka iyo dhakhaatiirta kale ay halkan idinku diyaar yihiin sidoo kale isbitaalkiisa ku yaala magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Boondheer dhabarka dambe wasaaradda boostada isgaarsiinta ayuu ku yaala oo shaqeynaya 24 saacadood isbitaalkaas hadii aad u baahan tahayna waad gaari kartaa wixii faahfaahin intaas dheer waxaad kala xiriiri kartaan taleefanka iminka shaashada idinkaga muuqda barnaamijka inta uu socdo waxaan rajaynayaa in aad waxyaabo badan oo cashara ama waxyaabo badan oo talooyin oo dhakhtarku bixinayo inaad ka qaadan doontaan ama aan ka wada qaadan doono Victoria marka hore aad u maasan tahay mar labaad waxaad bal faahfaahin naga siisaa sokorta ama macaanka maxaa keena maxaysa tahay Bismillahir Rahmanir Rahim Abdullahi aad baan kugu mahadcelinayaa dhaweysta aad isoo dhaweynayso markaan dib ugu soo noqdo topiga aan rabno caaw inaan ka hadalno oo aan laga daaleyn waliba hadda markuu Ramadaanka soo dhow yahay bisha barakeysan ee nagu soo foodaysan oo wiiga dambe ay tahay oo waliba aan dheereyn marka cudurkan waa mar kasta inaan ka hadalnaa waan ummadda u sheegnaa waliba dadka ugu badan ee Soomaalida hadda sokor dhibaato badan ka haysa cudurka sokorta Abdullahi wadaan ku sheego laba nooc buu kala baxaa labadaas nooc midna waxa weeye type 1 baa la yiraahdaa midna type 2 baa la yiraahdaa Abdullahi wiiga hadda aan soo dhaafnay waxa la leeyahay magaalada Gaarisa ilma ilaa 460 caruur in cudurka sokorta type 1 ku wada dhacay wax uu yahay meeshuu ka yimid aan la ogeyn marka cudurkaas waxa keena ana hadda cawada u faahinaya u sheegaya waxa la leeyahay nafaqo xumo cudurkaas nafaqo xumo kama yimaado laba nooc jira sokorta midna type 1 baa leeyahay midna type 2 type 2 ga nafaqo xumo ka imaanaya laakiin type 1 ka nafaqo xumo ka imaan maayo waxa jira pancreas wax la yiraahdo ama ganaca Soomaalida waxay tiraahdo aniga lafteeda ganaca runtii ma aanan garan jirin aniga pancreas un baan kasi jiray laakiin intaan ku bartay iyo Soomaaliya ku bartay in galac la yiraahdo ganaca ayaa cudur galaya waliba waxa jirta ganaca meel insulinka wax la yiraahdo insulinka soo daadiya meeshii insulinka soo daadinayay island la yiraahdo waa island waxa weeye isola meeshaas oo soo daadinaya markasta cunto markaad cunto iyo 24 saacadoodba wixii jirkaaga u baahan un buu soo daadinaya meeshaas gubanaysa waxa gubi kara infection inuu ka galo ama virus cudur la yiraahdo oo Coxsackie virus ayaa meeshaas galaya islandkaas pancreaska
gubaya hadduu gubo insulinka dhan baa joogsanaya wax insulin jirkaaga male marka maxaa dhacaya cunugii maxay dareemaysaa hooyada maxaa dhacay cudurkan 5 jir 6 jir 7 jir buu ku bilaabanaya ilaa wuxuu kugu socon karaa abadiyan ilaa 80 100 sano aad ka gaarto kaa bixi maayo cudurkan marka muxuu ku bilaabanayaa hooyada maxay garanaysaa cunugan maxay ka garanaysaa cunuga kaadi fara badan iyo haraad badan ay ka garanaysaa iyo gaajo fara badan intaasaa ku dhacaysa hooyo gaajo ay haysa war haddaad cuntay ma waalan tahay si alla ku galay leedahay ilaa waa nin balaayo gubaysa sokortu way gubaysaa wuu caatoobayaa soo cunto badan cunaaya ayuu caatoobaya dhammaanaya marka waa markay hooyada cararayso dhakhtar intay u geyso dhehayso war cunugii saasuu iga noqday waxayana garan maayo hadduu dhakhtarka haddee wixii uu leeyahay xoogaa aqoon dhagdhag sokortuu baarayaa waa ogyahay meel og marka ninkan type 1 qaba wax kale u dhigan malaha wax kale oo loo samayn karo malaha ilaa la cirbadeeyo mooyaan marka maxaa la sameynayaa cuntooyinka waa loo qoondeynayaa qoonda loo sameynayaa cirbadooyinkan waa loo qoondeynayaa waa in hal week 10 beri cisbitaal la dhigaa loo qoondeeyaa markii loo qoondeeyo wixiisa si fiican la baraa si uu noolaan lahaa ilaa abadiin buu ku noolaan karaa hadduu iska adkeyn dad waxaa jira type 1 qaba aan iska adkeyn oo hadda dabeel qaba oo keliyaha laga dhaqaayo ama stroke qaba maxaa dhacay de caawo waxaan rabaa maaragtay bariis fara badan inaan cuno xalwaan rabaa inaan cuno intii aan isduri jiray in ka badan aan isduraya haddaad tiraahdo mar walba saa isticmaasho jirkaaga khaldamaya adiga dhan baa khaldamaya marka waxaa la rabaa waxyaalihii dhaaf lagu yidhahdo inaad dhaafto wixii cun lagu yidhahdo inaad cunto daawadana regular u qaato wax dhib kusoo gaari maayo 100 sanaad ku gaari karaysaa sokorta waxay u baahan tahay in lala saaxiibo bes cabdilaahi marka caruurtaas meeshaas ku tabaalaysan cudurkan viruska ah ayuu 90% u maleynayaa inuu yahay coxsackie virus la yiraahdo marka ha laga taxadaro cudurkaas waxaa laga yaabaa inuu meesha hadda ku saaqayo haddii 460 qof wiigii hore la sheegay in laga helo marka ma la kala qaadi karaa mise dhaxal ku yimid waxaad hadda dhibaatada ugu badan type 1 dhaxalkiisa waa yar yahay dhaxal male type 2 dhaxal badan leh 70% type 2 isu dhaxlaa laakiin type 1 dhaxal male type 1 haddii pancreaskaas uu gubto infection kaa guba ama waxyaala kaa guba ayuu imaanayaa waxaa la yiraahdaa oo weliba aan la hubin dadka sokorta faraha badan aba inuu ka gubto markee pancreaska shaqadii warshadiya aad u shaqeynayso insulin marba soo tuur marka dambe isdhigaysaa way gabaysaa shaqadii ay gabaysaa waa jabaysaa sameynna male indu haddii warshad kaa jabto haddii waxaa beriya raadinaysaa sperbar meeshaan sperbar ma jiro hadduu jabo waa jabay finish marka saas laakiin caruurta waxaasaa u keeni karaa aad ugu fara badan infection inuu meesha galay aylankiyaa gubtay finish marka magarad marka cudurka type 1 cirbad maahane wax kala male ama 2 cirbad lagaaga dhigo ama 3 cirbad lagaaga dhigo ama subax iyo habeen lagu siiyo adiga cirbad mooyaane wax kaniin ah oo wax ku taraaya ma jiro doctor marka cirbadaha mid waxaa jirto ma jirtaa caloosha laga qaato taas laftigeeda ka hor qofka sokorta qabo cirbadaha oo dhan ama caloosha ka qaado ama jilibka ka qaado ama garabka ka qaado meesha arrinta waa ka qaadan kartaa cirbadaha dhan oo insulinka caloosha ama halkan ama halkaas laga qaataa meel kale lama laga qaadan karo halkaas la iskama duri karo waxa sokorta la yiraahdo oo dhan ba insulinka la yiraahdo saasaa loo qaataa maxaa dhacay de tartiib bay u shaqeynaysaa markii halkaas laga duro ama halkaas laga duro ama halkaas laga duro tartiib bay u shaqeynaysaa ay jirkaaga u galaysaa marka waa saas aad waa mahadsan tahay waana kaaga mahadcelinayna waqtiga qaaliga iyo sharaxaada guud aadna siisay goordhow waxaan dib isugu soo laaban doonaa barnaamijka dhakhtarkuna sidoo kale waxa uu noo diyaariyey sawir kooban oo dabcan uu sharaxaad badan naga siin doono cudurkan iyo meelaha uu ku dhici karo iyo saameyntiisa waana rajeynaya inta barnaamijka daawanaysaan in waxyaabo badan aad ka faa'iideen haddii aad iminka nagu soo biirtay barnaamijka dib ayaad u daawan kartaa waxaad ka heli kartaa baraha bulshada ee Somali Cable sida YouTube-ka iyo Facebook-ka Somali Cable halkaasi ayaad barnaamijka oo dhameystiran aad uga heli kartaa ama barnaamijyo hore oo aan hore u duubnay oo sanado badan ay ka soo wareegeen oo dhakhtarku talooyin badan oo dadka badan oo ka siiyay oo mowduucyo kala duwan ah ayaad sidoo kale ka heli kartaan
oo dabcan aad halkaasi talooyinka uu bixinaya aad ka qaadan kartaan. barnaamijkan uga hadlayno sokorta gordho ayaan dib isku soo laaban doonaa. barnaamijku wuxuu idinkaga imaanaya magaalada Nairobi, si gaar ah wuxuu idinkaga imaanaya isbitaalka Mucu Aweys oo ku yaala xaafadda Islii gaar ahaan wadada 10 Street. waxa uu shaqeynaya 24 saacadood iyadoo lagu soo kordhiyay qalabyo daaweyn laga keeno wadanka Jarmalka. qof walba oo haysta kaarka caymiska NHIF-na uu soo gaari karaa isbitaalkan oo ku yaala xaafadda Islii gaar ahaan wadada 10 Street. sidoo kale waxaa isbitaalkan oo yahay isbitaal casri ah oo dadka Soomaaliyeed uga maarmin doonaan caafimaadkii loo aadi jiray wadamada dibadda maadaama laga helayo qalabyo daaweyn casri ah oo laga keeno wadanka Jarmalka. sidoo kalena halkaan ay diyaar idinkugu yihiin baaritaano heer sare ah oo dhakhtarka iyo dhaqaatiir kale ay diyaar idinkugu yihiin idin ka qabtiraan. waxaan rajeynayaa dad badan oo Soomaaliyeed oo dhibaatooyin badan kala kulma wadaman dabcan dhaqaale badan ay uga baxaan caafimaad darrana ay ka soo qaadaan inay ka maarmin doonaan oo dhakhtarka la kulmi doonaan oo ay ka faa'iideysan doonaan fursadan qaaliga oo dhakhtarku uu bixinayo. waan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan. sidoo kale isbitaalkiisa ku yaala magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Boondheer dhabarka dambe wasaaradda boostada isgaarsiinta ayuu ku yaalaa, waxaana halkaasi ku sugan dhaqaatiir kala duwan. haddii aad u baahan tahay dhakhtarka caanka Dr. Cali Mucu Aweys isbitaaladiisa ku kala yaala magaalada Muqdisho iyo Nairobi-ba waxaad la xiriiri kartaa taleefanka iminka shaashada idinkaga muuqda. goor dhow ayaan dib isku soo laaban doonaa, balse iminka waxaan jeclahay inaan idinku soo dhaweeyo qadar adeega bulshada oo ku saabsan isbitaalka Mucu Aweys qaybtiisa magaalada tan Nairobi. ogeysiis muhiim ah waxaa la ogeysiinayaa dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi iyo deegaanada ku dhow in Dr. Cali Mucu Aweys oo ku takhasusay cudurrada guud gaar ahaan uur ku jirta, xanuunada dumarka iyo neerfaha uu mar kale dib ugu soo laabtay xaruntiisa caafimaad ee magaalada Nairobi ee xaafadda Islii wadada 10 Street. isbitaalka Mucu Aweys International oo ku yaala xaafadda Islii ayaa 24 saac ku qabanaya adeeg caafimaad, waxaana isbitaalka lagu diyaariyay qalab casri ah, kalkaaliyaal caafimaad iyo dhaqaatiir Soomaali iyo ajaanib isugu jirta. isbitaalka sidoo kale waxaa lagu sameeyaa qaliinada noocyadiisa kala duwan. bismillaahi raxmaani raxiim. ummadda degan magaalada Nairobi iyo gobolada dalka sida Garissa, Mandera, Wajir iyo magaalooyinka yaryarba waxaan rabaa inaan u sheego inaan ku sugnahay xarunteeda ku taala xaafadda Islii 10 Street Mucu Aweys International Hospital inaan ku sugnahay. aad iigu iman kartaan qof allaale qofkii danaynayo oo Soomaali ah waxaan leeyahay ku soo dhawaada. wax allaala waxaad sheeganayso waxbaan kala gaari doonaa insha Allah. waxaan rabaa halkaan inaan u sii sheego Soomaalida degan adduunka dacaladeeda oo dhan isbitaalkan cusub oo meeshaas aan bisha January hadduu alla idmo aan xirigiisa jari doono in mataqaanaa looga bogsan doono Soomaalidan ee dibadda ku ordaysa oo Turkiya iyo Hindiya iyo Malaysia iyo meelo la mid ah Bangladesh u socda. waxaan leeyahay waa looga maarmi doonaa Islii, xaafadda Islii oo magaalada Nairobi. xarun waxaan idinkaga furaynaa oo caalami ah oo wax walba laga heli karo, wax allaala waxaad sheeganayso laga heli karo, xataa haddii ay noqoto ilmaha lagu abuuro la heli karo, qalitaanka la nuucya la heli karo, lagu dhali karo. wax walba oo qof bini aadam danaynaya ama lafaha ama wadnaha ama caloosha ama sanbabka ama xagga dumarkaba wax walba oo qof alla danaynayo inuu ka heli doono ayaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba. waxaan rajeynayaa in looga maarmi doono dibaddaas lagu ordayo oo qarashkiisa aad u fara badan yahay, tikidkiisa uu fara badan yahay, oo mataqaanaa joogitaanka meelahaas la joogay uu ka fara badan yahay. Afrikada Nairobi haddaad timaado waxaaga ay 100% hoos u dhacayaan, 30% kugu bixi kara wixii kugu bixi lahaa marka dibaddaas aad aado oon la ogeyn xataa inaad ku soo caafimaad doonto. ilaahay baa caafimaad haya, dawana ilaahay, laakiin waxaan rajeynayaa ummadda Soomaaliyeed inaan jidka u soo yareyno. annaga ummaddaas un baan rabnaa inaanu danayno, dantooda inaan ka talinno hadduu alla idmo. Mucu Aweys International Hospital waxa uu ku yaalaa xaafadda Islii wadada 10 Street. wixii faahfaahin intaas dheer waxaad kala xiriirtaa taleefanada shaashada kaaga muuqda. wadaagaga daawadayaal soo noqod wanaagsan qaybihii dhexe ee barnaamijka caafimaadka ayaa daawanaysan. barnaamijkan wuxuu idinkaga imaanaya isbitaalka Mucu Aweys oo ku yaala xaafadda Islii gaar ahaan wadada 10 Street. waxa uu shaqeynaya 24 saacadood iyadoo lagu soo kordhiyay qalabyo daaweyn laga keeno wadanka Jarmalka. qof walba oo haysta kaarka caymiska NHIF-na uu soo gaari karaa isbitaalkan. haddii aad ku sugan tahay gobolada Kenya ama magaalada Nairobi dabcan way kuu fududahay inaad soo gaartid isbitaalkan oo laga helayo qalabyo daaweyn casri ah iyo sidoo kale baaritaan heer sare oo isbitaalkan idinkugu diyaariyay, maadaama isbitaalkan si heer sare loo qalabiyay dhaqaatiir kala duwan ay halkan ka howlgalayaan. dhakhtarka caanka Dr. Cali Mucu Aweys ayaa dhaqaatiiradaasi hogaaminaya oo aad uga barateen inuu ka soo shaqeeyo wadamada Ingiriiska iyo Jarmalka sanadadii ugu dambeeyay ka howlgalayay isbitaaladiisa ku kala yaala magaalooyinka Garowe, Muqdisho
iyo Nairobi oo minka uu ku sugan yahay sidoo kale isbitaalkiisa ku yaala magaalada Muqdisho oo shaqeynaya waxaana halkaasi ku sugan dhaqaatiiro heegan idin ah oo mar walba diyaar uga ah inay shaqaalaha dadka halkaasi soo gaaray u adeegaan sidoo kale haddii aad u baahan tahay wixii faahfaahin oo intaas dheer taleefanka shaashada idinkaga muuqda ayaad la xiriiri kartaan dhanka WhatsApp-ka haddii ay kuu fududahay waad la xiriiri kartaa oo haddii aadna Kenya joogin nambarkaasi ayaad wici kartaa oo shaqaalaha isbitaalka ayaa 24 saacadood waxay idin yihiin diyaar oo wax walba oo ka baxsan barnaamijkan oo su'aal aad u baahan tihiin ama haddii aad u baahan tahay in lagu tilmaamo isbitaalka oo dabcan aan idin sheegin inuu ku yaal xaafadda Islii gaar ahaan wadada 10 Street oo isbitaalku ku yaala dabcan dad badan oo ayaa waxaa jira Soomaaliyeed oo ku sugan Northeastern oo nala soo xiriiray oo doonaya dhakhtarka inay la kulmaan xilliga uu Soomaaliya ku sugnaa iyo xilligaanba waxaan rajaynayaa in dhakhtarku uu hadda uu ku sugan yahay magaalada Nairobi inay ka faa'iideysan doonaan oo waqtiga qaaliga ah oo dhakhtarku uu bixinayo dadka Soomaaliyeed oo kala qaybinayo marna Soomaaliya uu tagayo marna Kenya uu joogo in waqtiyadaasi laga faa'iideysan doono oo hadhow aan la dhihin dhakhtarku Soomaaliya aaday haddana aan la dhihin markii Soomaaliya la joogay Kenya soo aaday waan rajaynayaa in laga faa'iideysan doono fursadaas qaaliga ah barnaamijkan caawa uga hadlayno sokorta qaybta type 1ka ayaan oo dhakhtarku inoo sharaxaya sidoo kale toddobaadka soo socda haddii bakar hal noqdo type 2ga ayuu dhakhtarku inoo faahfaahin doonaa oo uu ka hadli doono cayilka iyo ramadaanka iyo dadka sida loo baahan yahay inay isu ilaaliyaan oo uga fikiraan caafimaadkooda talooyinkaasina waxaan rajaynayaa dhakhtarka uu bixinayo in mar walba aad ka faa'iideysan doontaan doctor mar kale aad u mahadsan tahay bal waxaad na tustaa iminka sawirka kooban oo aad noo soo diyaarisay iyo sokorta waxa ay tahay type 1 cabdullaahi aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa intaanan faahfaahinka bankriaska aanan gelin ama ganaca waxaan rabaa halkan inaan weliba ummadda Soomaaliyeed aan u sheego inta qabta type 1 oo cirbada isduurta Ramadaan ma karaan ma soomi karaan soonka dadkaas ma laha hadday dad soo ay afuriyaan iyo haddii say yeeli lahayn ba ayagay jirtaa kolley wadaad ha kala xiriireen laakiin nin cirbada isduraya oo type 1 ah ma qaadan karo ma yeeli karo inuu maalinkaas oo dhan gaajo hayso ma suurogelayso cabdullaahi markaan dib ugu soo noqdo hadda ganaca la sheegaya waa kan ganaca waxaan cad weeyaan markaad fiiriso meeshaas waa mindhicirihii kaas waa beerkii kan waa ganacii xamiitadii intaasna caloosha ku jirta marka waxa waa wax isku xiran meeshaan caloosha ku jira beerka xamiitada ganacana waa kan marka meeshaas gubanaysa cabdullaahi meeshaas oo la yiraahdo beta cell island la yiraahdo ayaa gubanaysa markuu gubto waa markii insulinka dhumaya oo ka baxaya jirka dhan waxa dhacay meeshaan markii insulinka soo saaro xididku ku shubaya xididka caloosha ku shubaya cuntada waa la qoodeynayaa inta ay u baahan tahay ayaa lagu soo shubayaa ayaa la burburinayaa marka ganaca dad badan ayaan sheegnaa pancreas ama ganac waxaan cadka ah oo meeshan saaran oo xididka miiran maraya ayaa la yiraahdaa ganac hadduu geedkaas ganaca la yiraahdo uu gubto dhibtaasaa ku imaanaysa hadduu kansar galo waa dilaa sida loo daweeyaa way adag tahay geedkan hadduu kansar galo pancreas cancer waa finish qofka bini aadamka ilaahay xaggiisa qofka dhimashada ilaah baa haya ilaahna wax dila nooleena ilaah baa wax nooleeya laakiin callama alinsaanu maa lam yaclam cilmigaas marka la yiraahdo beel baa halkaas haddii lagaa galo nolol iyo adiga waad isdayseen sida la ogyahay oo cilmiga lagu ogyahay marka saas u ogow doctor aad u mahadsan tahay inta aad noo sharaxaysay sawirka waxaad sheegtay in dadku aysan soomi karin maxaa haddii ay soomaan oo ku dhici kara cabdullaahi waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan runtii ummadda Soomaaliyeedna ay u baahan tahay inay ogaadaan intooda aan ka warqabin horta cudurkan type 1 la yiraahdo type 2 waa ka hadli doonaa wiiga dambe type 1 la yiraahdo waa cudur aad iyo aad u adag oo aan suuragelayn adigoon cirbad aadan qaadan ma suurogelayso haddii cirbadaas aad isdurto aadan wax cunin waa ku dilayaa ilaah baa wax dilaana waa ilaahay waa ku dhimanaysaa maxaa dhacay sokortaadii baa dhacaysa hoos u dhacaysa zaid waa qodobka labaad haddaadan cirbad isdurin sokortiba intay badato ayaad suuxaysaa coma diabetic aad gelaysaa ayadana waa qodob kale marka saa daraadeed qofka type 1 ah oo cirbada qaata ma soomi karo soonka waa mamnuuc qofkaas ma soomi karo hadduu soomo haddii asay u taallaa asaa ogaanaya meeshuu gaarayo laakiin cudurkaas wax cudur wanaagsan ma aha
haddii aad la saaxiibto daawadaada qaadato laakiin dad aad afurin karaysaa maanta mataqaana diinta islaamka wax badan bay banaysay oo ay mataqaana ay furtay doctor sidoo kale waxaad bal faahfaahin naga siisaa dadka balwadda isticmaala ee sokortaana qaba ka waran iyaga cabdullaahi ugu mahad celinayaa nin type 1 qaba horta balwad kuma fiicna type 2 iska badaaba type 2 ka hadli doonaa way ka khatarsan tahay type 1 maxaa dhacay type 1 haddii cirbadahaaga lagu qoondeeyo oo mataqaanaa cuntadaadana la qoondeeyo oo wixii ay ku qoondeysan yihiin waa dhamaatay laakiin maalinka ay kugu dhacdo mataqaanaa balwad iyo balaayo iyo waxaas aad dhex gasho hadee adiga adaa isdilay hadee cilmiga kulli waa kasoo horjeeda doctor ma keeni karaan cuduradan stresska badan qofka duu fikiro ama caruur badan koris uu ku jiro iyo dhibaatooyin badan stresskaas laftigiisa ma keeni karaan cabdullaahi aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa hadduu stresska badan yahay ma keeni karo sokor inay kugu dhacdo ma ku iman karo sokor waxaa kuu keenayaa cudur inuu kugu dhaco iyo adiga noloshaada mataqaana caafimaadkaaga inaad xun tahay macaan fara badan iyo waxaas inkastoo la leeyahay hadda waxa uu keenay nafaqa uu keentay nafaqa caruur weli nafaqa wuxuu ka ogyahay male waa ordayaa wuu cararayaa oo nin ma garan karo laakiin qofka weyn haddii maaragtay maalinkaas oo dhan shaah sokor leh iyo malab iyo balaayo iyo jinni uu daldalo waa dhici kartaa inuu ka gubto laakiin wax ma aragti la yiraahdo male dhaxal wax la yiraahdana aad iyo aad buu yar yahay type 1 doctor maxaa ka jira in haddii qofka sokorta qaba haddii laga nixiyo qofkaasi uu suuxi karo ama halis u yahay inuu wadnaha istaago arrintaas maxaa ka jira cabdullaahi su-aashan lafteeda waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah oo soomaalida jecel ninka dhiigga qaba iyo kan sokorta qaba lagama nixiyo ya wax la iska ilaaliyo haddii xaggaan ha laga ilaaliyo kan ha laga ilaaliyo waxaas wax jira ma aha haddii lagaa nixiyo adaa naxaya maana wax kale qabsanayo male wadnaha hadduu kaa joogsada marka hore wadnaha ka adka jiranay cudur hore kuu hayay ayaa kugu soo furdaansamay laakiin nixin iyo mataqaanaa adi qalbiga lagaa jibiyey iyo ma jiraan waxaasayto sokorna kugu dhici maayo wadnana kaaga joogsan maayo bes waxa keliya kaaga joogsanayaa cudur adoo markii hore qabay haddii wax dhibaato badanna ay kusoo gaaraan aad naxdo xinjiraa galaya marka wadnaha joogsada waxa keliya joojinaya waa xinjir inuu galo la yiraahdo coagal la yiraahdo ama plaques la yiraahdo xinjirtaas ayaa xididka intuu galo joojinaya wax kale joojin kara male oo ilaahay kasoo koobtay waan rajaynayaa in fikirkaasi khaldan oo dadka Soomaaliyeed ay aaminsan yihiin wax yar ka horna dabcan qof aan meel isla soconay arrintaas ka hadlayay in talooyinkaasi ay qaadan doonaan aad siinayso ugu dambeyntii maxay tahay talada ugu dambaysa dadka Soomaaliyeed aad siin lahayd cabdullaahi marka koowaad mar labaad mar saddexaad horta aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa Soomaali Cable shaqaaleed iyo madaxdeedina inaan u mahad celiyaan rabaa fursadan wanaagsan ay nasiinayaan waxaan kaloon rabaa halkan inaan u sheego ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan qaarkooda oo sokorta qaba bisha Ramadaan oo barakeysan oo nagu soo fool haysa oo wiiga dambe ay tahay in la iska ilaaliyo waliba type 1 aan caawa ka hadalnay type 2 ga waa ka hadli doonaa wiiga dambe hadduu alla idmo marka waxaan leeyahay haddii aad qaadanayso type 1 aad qabto oo cirbadaas aad qaadanayso soonka ha isku dayin dhihin ma aragtay intay ku qaado soomaya koomaad geli karaysaa dhibaato fara badan baa kaa soo gaari karta marka ka carara waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaan caafimaadka lagu dadaalo taasaa muhiim ah dadka Soomaaliyeed ee rabeen Kenya joogaan ay rabaan inay ku yimaadaan balka horeeya cabdullaahi waxaan leeyahay horta aniga waqti xaadir waxaan ku sugnahay magaalada Nairobi xaafadda East 10 Street Mount Abbas International Hospital isbitaalka la yiraahdo qof alla la qofkii danaynaya oo raba inuu yimaado waa diyaaran nahay waxbaan kala gaaraynaa faa'iidaan kala gaaraynaa ilaahay gacantayda dawaha ku daran leenahay laakiin waxaan leeyahay waqti xaadir halkaan aan joogaa bisha Ramadaan waa joogaa dad baa hadda dibadda naga soo wacay oo na weydiinaya ma aragtay bisha Ramadaan takhtarka ma joogaa waa joogaa hadduu alla idmo bisha dambe ayaan qoondaynayaa marka hore waxaan rabay Ramadaanka inaan Muqdisho tago laakiin hadda waa go'aankayga si kale u noqday ilaahay baa saanta iskala qaadeeda marka ilaahay noo gargaaro oo noogu talagalan bixinaa insha Allah
إن شاء الله هذا وما سنت هذه الوقت غالي وكذا ما تعلنينا ومر بعض كوسو بحسب برنامج كان ستة عافيمات أو تسيسو تدوينها الصوماليات دون كذا على دي سكوك على سؤال جودنا دعوة اللي انت زي أنا كوسو كبير إن برنامج كي عافيمات كان عاوج هاد ليني عذر كأما سكرتا أما معان كذا كصومالية سيد وهي قانون قيب تايب 1 تطبيقات قصص عدنا دي بكرة نقضوا عن كال دونا تايب 2 ما دام بشبر كيسان رمضان إنه كوسو فضل ليه هاي وحياة بدنا اللوبة هاي إن لقى فكيرو أو ضد كعذر دنقبة لوبة هاي نقاطن تلوين كأيو نختارك وشيء أيو وأنا رجينا إن لقى فايدة سنتونو برامج كحودين كجي من الإسبيتال كمعويس وكيا لحافظ إسلي قارن وضد تاني ستريت أفريل واتن كسعد شقينا يوحنا الكان كول قرد قاتير كلا دون أوركع يرترك عن كاركتر علي معويس أو كنت قاسي عذر دجود قارن عذر دور كجرت رخترك عذر قبرتين ونكسر شقي وضم الإنجليز كجرمال كسنة دي وجود بيو حكول قريي إسبيتال دي سكوك لي على مقالوين كجروي مقدسي نيروبي ومن كوكسوكين هالكان كرد إسبيتال عصرية أو ضد كصومالية وجمار مدونان عافمات كيلو هذا جرو وضم الدبادة ما دام الجيل هي قلبية دواين عصرية oo laga keenay wadanka Jarmalka sidoo kalena waxa halkan diyaarada kugu ah baaritaan heer sare hadii aad ku sugan tahay gobolada Kenya ama magaalada Nairobi waad soo gaari kartaa oo halkan waxa lagu ogolyahay kaarka caymiska NHIF sidoo kale isbitaalkiisa ku yaala magaalada Muqdisho gaaraan degmada Boondheer warka dambe wasaaradda boostada isgaarsiinta ayuu ku yaala waxaana halkaas ku sugan dhaqaatiiro diyaarada kugu ah wixii faahfaahin intaas dheer waxaad kala xiriiri kartaan taleefanka iminka shaashada idinka muuqda oo wax walba aad u baahan tihiin aad ka heli kartaan shaqaalaha isbitaalka Mucaawiys oo mar walba heegan idin ah barnaamijkan waa naga inta dhanka talasiintu waa dhaqtarka aan karakter Ali Mucaawiys aan u mahadcelinayno waqtigiisa qaaliga barnaamijkan ku soo bixiyo dhanka farsamada iyo kaamirada Ilyas Rajaan iyo Cabdullaahi Axmed Ali Saciid dimitaan kulmi doona barnaamijkan lamida toddobaadka soo socda inta ka horeysa dhamaanteen isku duuban waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo kuna soo dhawaada qadar adeega bulshada oo ku saabsan isbitaalka Mucaawiys qaybtiisa magaalada Nairobi ogeysiis muhiim ah waxaa la ogeysiinayaa dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi iyo deegaanada ku dhow in Dr. Cali Mucaawiys oo ku takhasusay cudurrada guud gaar ahaan uur ku jirta xanuunada dumarka iyo neerfaha oo mar kale dib ugu soo laabtay xaruntiisa caafimaad ee magaalada Nairobi ee xaafadda Islii wadada 10 Street isbitaalka Mucaawiys International oo ku yaala xaafadda Islii ayaa 24 saac ku qabanaya adeeg caafimaad waxaana isbitaalka lagu diyaariyay qalab casri ah kalkaaliyaal caafimaad iyo dhaqaatiir Soomaali ajaanib isugu jirta isbitaalka sidoo kale waxaa lagu sameeyaa qaliinada noocyadiisa kala duwan bismillaahir rahmaanir rahiim ummadda degan magaalada Nairobi iyo gobolada dalka sida Garissa Mandera Wajir iyo magaalooyinka yaryarba waxaan rabaa inaan u sheego inaan ku sugnahay xarunteeda ku taala xaafadda Islii 10 Street Mucaawiys International Hospital inaan ku sugnahay aad iigu iman kartaan qaf allaale qafkii danaynayo oo Soomaali ah waxaan leeyahay ku soo dhawaada wax allaala waxaad sheeganayso waxbaan kala gaari doonaa insha Allah waxaan rabaa halkaan inaan u sii sheego Soomaalida degan adduunka dacaladeeda oo dhan isbitaalkan cusub oo meeshaas bisha January hadduu alla idmo aan xirigiisa jari doono in mataqaanaa looga bogsan doono Soomaalidan ee dibadda ku ordaysa oo Turkiya iyo Hindiya iyo Malaysia iyo meelo la mid ah Bangladesh u socda waxaan leeyahay waa looga maarmi doonaa Islii xaafadda Islii oo magaalada Nairobi xarun waxaan idinkaga furaynaa oo caalami ah oo wax walba laga heli karo wax allaala waxaad sheeganayso laga heli karo xataa haddii ay noqoto ilmaha lagu abuuro la heli karo qalitaanka la nuucya la heli karo lagu dhali karo wax walba oo qof bini aadam danaynaya ama lafaha ama wadnaha ama caloosha ama sanbabka ama xagga dumarkaba wax walba oo qof la danaynayo inuu ka heli doono ayaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba waxaan rajaynayaa in looga maarmi doono dibaddaas lagu ordayo oo qarashkiisa aad u fara badan yahay tikidkiisa oo fara badan yahay oo mataqaanaa joogitaanka meelahaas la joogay uu ka far badan yahay Afrikada Nairobi hadda timaado waxaaga ay 100% hoos u dhacayaan 30% kugu bixi kara wixii kugu bixi lahaa marka dibadaas aad aado oo la ogeyn xataa inaad ku soo caafimaad doonto Ilaahay baa caafimaad haya dawana Ilaahay laakiin waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed inaan jidka u soo yareyno annaga ummadaas baan rabnaa inaan u danayno dantooda inaan ka talino hadduu alla idmo Mucaawiys International Hospital waxa uu ku yaala xaafadda Islii wadada 10 Street wixii faahfaahin intaas dheer waxaad kala xiriirtaa taleefanada shaashada kaaga muuqda